war degdeg ah tiro hoobiyayaal culculus oo lagu garaacay xerada xalane xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiin kale oo beesha caalamka ah oo ku sugan isla xerada xalane. maxaa halkaasi ka dhacay? sidee ayayse duqaymahaasi u dhaceen? amniga magaalada muqdisho oo si weyn looga dayrinayo maalmaha ciidda, rag qarax ku diyaarinaya gudaha muqdisho oo lasoo qabtay, sidee ayay wax u dhaceen? qodobadaasi iyo kuwo kale oo xasaasi ayaan doonayaa inaan kugula wadaaga muuqaalkan. ilaag saar muuqaalka, la wadaag saaxiibadaada kale oo sheer leh, ka mid noqo saaxiibada nagu xiran. mahadsanid. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya tiro hoobiyayaal ah oo gelinkii hore ee maanta lagu garaacay xerada xalane ee magaalada muqdisho, kuwaasi oo si weyn looga dareemay gudaha caasimadda. ilaa iyo 2 hoobiye ayaa lasoo warinayaa inay ku dhaceen gudaha xerada, halka mid ka midana uu ku dhacay xaafad ka mida degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. hoobiyaashan ayaa waxaa laga maqlay degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir, waxaana haatan soconaya dhaqdhaqaaq ay wadaan laamaha ammaanka ee ku aadan weerarkan. wax yar kadib waxaa sidoo kale garoonka laga shiday sayriga bixiya digniinaha marka la dareemo inay jiraan xaaladaha halis ah ee la xiriira amniga garoonka muqdisho. ma cadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarkan loo adeegsaday madaafiicda ee ku soo aaday xilli haatan dhaqdhaqaaqyo culus ay ka socdaan xerada xalane ee magaalada muqdisho, islamarkaana shirar ay ka wadaan wakiilada beesha caalamka iyo madaxweynaha Soomaaliya. ma jirto ilaa iyo haatan wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha hay-adaha amniga ee ku aadan hoobiyaasha lagu garaacay garoonka aadan cadde iyo xerada xalane. xaaladda ayaa haatan mid degan, waxaana si caadiya ku socda shaqada garoonka oo ma jiro wax saameyn ah oo uu ku yeeshay weerarka hoobiyaasha ah ee lagu qaaday xerada xalane. weerarkan ayaase ku soo aadaya iyada oo toddobaadyadii lasoo dhaafay qaar ka mida degmooyinka gobolka Banaadir lagu garaacay tiro hoobiyayaal ah, kuwaasi oo dhimashadii dhaawac ay ku noqdeen dad rayid ah oo aanan waxba galabsan. madaafiicda qaar ayaa lagu beegsaday xarumo dowladeed oo muhiim ah sida aagaga madaxtooyada, garoonka diyaaradaha aadan cadde iyo meelo kale oo ka mid ah caasimadda. dhammaan weeraradan ayaa ku soo aadaya xilli haatan dowladda Soomaaliya ay dagaal adag kula jirto Al-shabaab, islamarkaana la isku hayo furimaha hore ee dagaalka. kooxda ayaana muddooyinkii dambe xoogga soo saartay gobollada Shabeellooyinka oo haatan ay ka socdaan dagaallo qaraar, waxaana barbar socda duqaymo diyaaradeed oo ay fulinayaan saaxiibada caalamiga ah ee hawada ka taageera ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Soomaaliya ayaa galaysa toddobaadyo xasaasi ah oo ay soo bixi doonaan go'aano xoog leh, maadaama ay sii xoogaysanayaan ismariwaaga siyaasadeed ee dalka ka taagan. ilo diblomaasiyadeed ayaa noo xaqiijiyeen beesha caalamka, gaar ahaan kooxda lagu magacaabo C6 ay khamiista maanta ah shir heer sare ah la yeesheen, islamarkaana magaalada muqdisho kula qaateen mas-uuliyiin ugu horreeyay madaxweynaha Soomaaliya. shirkan ayaa waxaa ka qayb galay saaxiibada ugu waaweyn Soomaaliya, waxaana diiradda lagu saaray sidii loo dejin lahaa mowqifka diblomaasiyadeed oo midaysan oo ku aadan wadahadallada siyaasadeed ee uu dhowaan ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud. xubnaha madasha samata bixinta oo ah isbahaysi ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ka mid yihiin madaxweyneyaal hore, ra'iisul wasaareyaal hore iyo guddoomiyeyaal hore ee baarlamaan, ayaa ku baaqaya hannaan siyaasadeed oo loo dhan yahay. wakiilo ka socda Maraykanka, UK, midowda Yurub, qaramada midoobe, midowda Afrika iyo IGAD oo dhammaantood ka tirsan kooxda C6 ayaa la filayaa in ay ka tashadaan istaraatiijiyadana ay kula macaamili doonaan xaaladaha siyaasadeed ee sii murugaysan. khilaafka taagan ayaa u dhexeeya labada garab ee siyaasadeed, dhinaca fil Soomaaliya oo ay taageersan yihiin 3 dowlad goboleed iyo maamulka SCC Khaatumo, islamarkaana garab siinayaan xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee uu guddoomiyaha ka yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhawaana ballaariyey, iyo dhinaca mucaaradka oo ay hogaaminayaan Axmed Madoobe iyo Jubbaland. waa sidoo kale Siciidan iyo Puntland iyo siyaasiyiin miisaan leh, kuwaas oo ku eedeeyay madaxtooyada inay waddo qorshe lagu ururinayo awoodda dalka, taasi oo wax u dhimaya nidaamka federaalka. diblomaasiyiin ayaa ka digaya in xaaladdan ay khatar gelin karto isku dheelitirka siyaasadeed ee federaalka, taasi oo horseedi karta burbur siyaasadeed iyo carqaladayn ku timaada dalladahan dhismaha dowladda loo dhan yahay iyo xasilooni waarta. hase ahaatee, madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa ayaa ku dadaalaya sidii ay ganafka ugu dhufan lahaayeen wax walba ee ka soo baxa dhinaca mucaaradka. fiqina waxa uu aad uga deyriyey xaaladda amni ee magaalada caasimadda ah Muqdisho, waxaana faahfaahinno dheeri ah ay ka soo baxayaan jug qarax weyn oo xalay laga maqlay degmada Daynile ee gobolka Banaadir,
kaasoo lasoo warinayo inuu ku qarxay raggii diyaarinayay oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab. qaraxan ayaa ka dhacay guri ku yaala xaafadda barwaaqo ee degmadaasi, waxaana la sheegay in lagu dhex diyaarinayay kadibna ay ku halaagmeen raggii ku howlanaa. dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqlayeen joogta labada qarax, waxaana kadib goobta si degdega u gaaray ciidamo ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda federaalk Soomaaliya, kuwaasi oo qaaday tallaabooyinkii loo baahnaa. wararka ayaana intaa ku sii daraya in raggan oo dhaawacyo ah ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada, sidoo kalena ay qabteen mooto bajaaj lagu rarayay walxaha qarxa. ciidamadan ayaa sidoo kale la wareegay gebi ahaanba guriga ay ka dhacday dhibaatadan ee lagu dhex farsameynayay qaraxa ka dhacay halkaasi. ma jirto ilaa iyo haatan wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga Soomaaliya ee ku aadan dhacdadaasi, waxaase soconaya baaritaano lagu hayo ragga la qabtay ee ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxa ay ku diyaarinayeen xaafadda barwaaqo ee degmada Daynila gobolka Banaadir. ammaanka guud ee degmadan ayaa muddooyinkanba ahaa mid degan, waxaana iska kaashaday ciidamada ammaanka iyo dadka deegaanka oo dhowr jeer ka hortegay weeraro qorshaysan iyo qaraxyo ay soo maleegayeen kooxda al-shabaab. sidoo kalena waxaa meesha ka baxday hoobiyaal marar badan laga soo tuuri jiray aagga degmada Daynile, sida uu dhowaan shaaciyey wasiirka amniga gudaha Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag. si kastaaba magaalada Muqdisho ayaa haatan ku jirta xaalad deganaan ah, waxaana laga nastay qaraxyadii joogtada ahaa iyo weerarada tooska ahaa ee dhici jiray, islamarkaana caasimadda gudaheeda ka dhici jiray, balse weli waxaa jira isku dayo oo ay kooxda al-shabaab ku doonayaan inay ku carqaladeeyaan amniga guud ee caasimadda. waxaana jira mararka qaarkii inay ka dhacaan hoobiyaal ay ka soo tureen duleedka magaalada, islamarkaana ay ku weeraraan xarumaha muhiimka ah ee dowladda, tii oo maantaba ay ka dhacday in 2 hoobiye lagu soo tuuray gudaha magaalada Muqdisho si weyn looga maqlay aagagga Xalane iyo degmada Wadajir ayayna ku kala dhaceen labadaasi hoobiye. welina lama soo tabin wax khasaare ah oo ka dhashay. haddaba wax walba ee ka soo kordha wararkeenna iyo barnaamijyadeena dambe ayaa idinkugu soo gudbin doonaa.